aadan tan ogeyn ganacsi kuma guuleysanaysid. Assalaamu calaykum saaxiibayaal, maanta waxaan ka hadli doonaa runtii qodob aad muhiim u ah oo dad badan ka maqan runtii. Qodobkan ayaa go'aaminaya haddii ganacsigaagu guuleysanayo iyo haddii uu fashilmi doono. Haddii aadan tan ogeyn runtii waxa weeye ganacsigaagu way adag tahay inuu guuleysto. Qodobkan muhiimka ah ee go'aaminaya inuu ganacsigaagu guuleysto runtii marka la qaybiyo qaybta ugu horeysa waxa weeye fahamka macaamiisha. ganacsigu wuxuu ka bilaabmaa macaamiisha. Haddii aadan garanayn waxa ay rabaan, sidee ayaad wax u iibin kartaa? Ganacsiyada guuleysta waxay bartaan dhibka macaamiisha oo ay keensadaan xal sax ah. Tusaale, haddii aad iibiso dukaan online ah, macaamiishaadu waxay rabaan sida ugu fudud ee alaabta loo helo, qiimo fiican iyo adeeg degdeg ah. Haddii aadan fahmin tan, runtii lacag kama samayn doontid, ganacsigaaguna ma guuleysanayo. Qodobkan markaan laga hadlayo waxa ugu horeeya waxa weeye fahamka macaamiisha. Haddii aad macaamiisha cidda ku ah iyo macaamiishaada haddii aad fahanto, runtii waxa soo dhawaanaysa ganacsigaagu inuu guuleysto. waxa kale oo muhiim ah waxa la yiraahdo in aad leedahay fikrad ganacsi oo cad. Fikrad ganacsi ama ganacsigaagu fikradda uu ku dhisan yahay inay tahay mid waadax ah oo qof kasta fahmi karo. Fikrad ganacsi oo cad waa muhiim. Waxaan bilaabay ganacsi kaliya kuma filna intaasi. Waa inaad ogaataa maxaa ka dhigaya ganacsigaaga mid gaar ah. Maxay macaamiishu u doonayaan adiga halkii ay doonan lahaayeen qof kale. Haddii aadan fikrad cad haysan, ganacsigaagu waa lumaya, waana guul daraysanaya. Marka qodobka ugu muhiimsan waxyaabaha marka la rabo qofku inuu si fiican u fahmo waxa weeye fikrad ganacsi oo cad inaad leedahay. Sidoo kale in aad leedahay waxa la yiraahdo dulqaad iyo joogtayn. Ganacsigu ma aha lacag degdeg ah. Dad badan ayaa quusta 1 ilaa 3 bilood gudahood, dad baa ku quusta. Haddii aad rabto guul, waa inaad leedahay dulqaad. Fashilku waa caadi, laakiin waa inaad cashar ka barataa. Joogtaynta iyo ficilka saxda ah ayaa keena runtii guul waarta. Marka waxyaabaha muhiimka ah ee la rabo qofku inuu fahansan yahay waxa kamid ah dulqaadka iyo joogtaynta muhiimadda ay ganacsiga u leeyihiin. Sidoo kale waxyaabaha muhiimka waxa kamid ah maareynta lacagta. Tusaale, lacagta ku soo galaysa iyo lacagta aad kharash garaynaysa, qaabka aad u maareynaysaa waxay go'aaminayaan ganacsigaagu inuu guuleysto iyo inuu guul daraysto. Lacagtu waa laf dhabarta ganacsiga. Baro sida loo maareeyo profitkaaga, kharashka, maalgelinta ganacsiga. Ganacsiyo badan ayaa guuleysta sababtoo ah waxay lacagtooda u maamulaan si xigmad leh, halka kuwa fashilmaana ay runtii lacagtooda u maareeyaan si markaa aan wanaagsanayn oo aan ganacsiga horumarinayn. Marka waxyaabaha muhiimka ah ee qodobku in ganacsiga guuleysto soo galaya waxa weeye maareynta lacagta, sida aad lacagta u maareyso. Faa'iidada ha noqoto, kharashka ha noqoto, maalgelinta ha noqoto. waxyaabaha kale oo muhiimka laga rabo qofka inuu fahamsan yahay waxa kamid ah fursadaha runtii online-ka ka jira. 2026 internetku waa fursad weyn. waxaad bilaabi kartaa freelancing, waad bilaabi kartaa affiliate marketing, ayaad bilaabi kartaa social media management, ayaad samayn kartaa. intaasoo dhan haddii aadan fahmin fursadaha online-ka waxaad ka maqnaan kartaa runtii lacag badan. waxaana ku bilaabi kartaa fursadahan runtii si bilaa lacag ayaad fursadahan freelancerka, affiliate marketing iyo social management runtii aad ku bilaabi kartaa. laakiin waxay u baahan tahay aqoon iyo ficil joogto ah. runtii fursadaha online-kuna waxyaabaha keenay ganacsigu inuu guuleysto iyo inuu guul daraysto. haddii ganacsiga aad marketing sax u samayn, haddii aad ganacsiga qaab dadku ay macnaha, tusaale haddii ganacsigu weyn aad leedahay, waa inaad samaysaa wax la yiraahdo affiliate, oo ah in aad tusaale dadka caanka oo kale haddii aad kharash awoodi karto inaad waxa weeye ganacsiga xayeysiin fiican u samayso, sponsors iyo dad badan oo caan ah markaa oo ganacsiga meel fog gaarsiiya inaad samayso. waa muhiim fursadaha online maadaama dadka online-ka ay joogaan in aad runtii dadka ka faa'iideysato oo aad ganacsigaaga dadka gaarsiiso. waxa laga yaabaa $100 oo aad kharash ku bixisay, xayeysiin aad ku bixisay, oo aad macaamiisha dadku alaabtaada ku gaarsiisay inay kuu keento $10,000 oo runtii ay $100 ku dhasho. marka mar kastoo aad kharash bixiso oo si macquul gal ah oo wanaagsan oo businesskaaga si togan u saameynaysa aad samayso, waa mar kastoo guul uu kuu keeno. gunaanadka waxaan ku soo ururinaynaa
guusha ganacsi waa isku darka fahamka macaamiisha fikrad cad dulqaad maareynta lacagta iyo fursadaha online-ka haddii aad tan ogaato waxaad bilaabi kartaa ganacsi guuleysta haddii aad jeclaatay videogan runtii wuxuun aad ka faa'iiday subscribe noo saar sidoo kale like noo saar commentina ka bixi si aad u hesho ama aan u ogaano waxa aad doonayso in laga soo hadlo iyo mowduucyada runtii aad xiisaynayso walaal YouTube-ka waxaan kaga hadalnaa online business-ka iyo horumarinta shakhsiyadda haddii aad mowduucyada jeceshahay iyo title-ka aad rabto ama mowduuca aad leedahay mowduucaas mudan in laga hadlana commentiga noogu soo roobi kartaa aad baa mahadsantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh